بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya maalin wanaagsan. Inta ka bacdi waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago warbixin kooban oo ku saabsan guud ahaan xaaladda dalka iyo gaar ahaan waxyaabaha degdega ah ee baryahan ku soo kordhay saaxada dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda. waxaan rabaa inaan walaalayaal waxa soo gaaray baryahan cabashooyin ka imaanayo dadweynaha ee ku saabsan waxyaabo ay ka tabanayaan xagga dawladda iyo dad la sheegay inay dawladdu adeegsatay oo ay la shaqeeyaan. cabashooyinkaas waxa ugu horeeyay dhalinyarada bajaajleyda ah cabashadooda oo hay'adaha amniga iyo wasaaradahaba ay soo gaarsiiyeen. dhalinyarada waxaan leenahay bajaajta sida la og yahay adduunka caasimadaha dawladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqeyso, laakiin anagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqeyso oo u arkaynay maslaxadda dhalinyarada inay tahay. dhalinyaradu inay fursad u leedahay ee shaqo hesho, noolaato, madaxooda uu kor ahaado, ay dareemaan dalkooda inayna ka tahriibin, in ay fursad suurtagal ah inay tahay maanta berina mid kasii fiican oo kale ay imaan doonto. nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaabo oo xadgudubyo ay tabanayaan. waxyaabahaasi saraakiishii dawladda ee ama hay'adaha amniga ka tirsaneed ama gobolka Banaadir ama wasaaradaha ee la kulantay si guud ay u soo wada report gareeyeen. howlo in badanna waa la joojiyay, howlahaas waa la saxay, qaar kalena hadda lagu daba jiraa waa la saxayaa. waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo. inay noolaadaan aan meesha u keennay, u ogolaanay noloshoodii wax cidhiri gelinaya marne dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna, raallina ka noqon mayno, waana saxayna. waxaa intaas barbar taagan, laakiin waxaan rabaa dhalinyarada wiilashayda inaan u sheego inaad cabato oo aad waxa aad tabanayso ama waxa kaa hadlaysan aad sheegtahay waa xaqa aad leedahay. sida aad u sheegaysahayna sida nidaamka iyo sharciga iyo deganaanshiyaha uu wado yaanu kugu soo dhex dhuumanin nin ajenda kale leh ama qaabdarro kale leh. bes waayo waxa dawladdu ay tabaysa, laakiin cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa, intii dawladnimada wax taraya ahna waa laydinku soo celinayaa. marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan. waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dawladooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa. laakiin marna ma jirto, waad ogtihiin duruufihii adkaa dalkan soo maray. bajaajleyda waad ogtihiin intii dil maalin walba iyo usbuuc walba dhici jirtay oo nin bajaajla oo shaqaysanayo xamaalanayo wuxuu biyaani jirin xabad in lagu dhufto. waxaas waa ka wada hortagnay, si maanta way dhammaataa la dhihi karaa. shilal mar walba oo mujtamac oo wada nool yahay way ka dhexdhacaan, laakiin taas waa ka gudubnay. magaalada isu socodkeedii iyo dhibaatadii wixii jirtay waa la nidaamiyay, waad garanaysaan. masaalixda bajaajleyda ayuu laga fakarayo ayaa la kala qaybiyay, qolba maalin ay si xor u shaqaysato. waad ogtihiin adikaana ka marqaati kacdeen markii la isku daysanaa dhaqaalihii la heli jiray ama dakhligii ay heli jireen mid ka badan inay maanta laga helo marka la kala joojiyo. waxay soo gaartay cabashooyinkiinoo dhan, hadday tahay laysan qaadashada, hadday tahay qarashaadka ku baxa, hadday tahay ganaaxyada, hadday tahay maxaan ku raha wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa la joojinayaa, waana dibaa loo eegaya haddii alla yiraahdo. waxaan rabaa dhalinyarada inaan intaa u sheego, aanay maxaan ku rahdaa ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku rahdaa masaalix kale iyo dana kale oo dadleeh laga dhex fushada haddii alla yiraahdo. taas waxaan rabaa inaan meeshaas muxuu ahaay aan ku soo koobo aan uga baxo. ganacsatada Soomaaliyeed, ganacsatadu mar walba waa laf dhabarka dalkan. wax soo saarka, shaqo siinta dadka, dakhli u abuurista dawladda, hagaajinta jawiga, dhammaan ganacsatada ayay ku tiirsantahay. laakiin ganacsatadu intaasoo dhan waxay faa'iido u leedahay marka ay ganacsigooda wixii xuquuq ahaa oo dadku ay lahayn. ilaan beledkaanaad ku ganacsanay, ammaankiisa dad u dhintaa, maxaan ku irahdaa nadaafadiisa dad u dhintaa, maxaan ku irahdaa waa ogtahay inta hooyo ayagoo qashin magaalada ka qaadayo
nimankan khawaarijta ay bamba ku tuureen ama miino u duugeen oo ku qaraxday oo ku dhimata ayagoo qashin qaadayo askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo oo ay ugu dambeysay kuwa saakay maqaayadii ay ka shaahayeen bambada loo dhigay maxaan ku radaa degmada Dayniile ee hadda ugu dambeysay maalin walba dadaasaa u dhimanaya askarigaasi waxa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay maxaad dowladnimada u xoojinay maxaad dalka deganaanshiyo iyo dowladnimo aad ugu soo dabaalay iyo wiilkaas u dhimanaya ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas waxa yarka ah ee aan naftiisa wax u qalma aan ahayn asagu rabitaankiisa iyo dadnimadiisa oo u dhimanayo daraadeed ee muxuu ahay caawilcinaha loo soo biilay lacagta yareed dowladdu dakhli kale ma qabto batrool nooma soo baxo warshado dowladdu leedahay nooma shaqeeyaan cashuurta yarta ee dadka Soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya ee gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaan ku raadayay mooska iyo midka maxaan ku raadayay dukaanka yarka meel uga furan yahay badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac ay cashuurta laga qaado waay iyo marka u dambeysana dadka isticmaalaya adeegaas oo dhan qofka shaahiga cabaya ay ku soo dhamaato walaalayaal waxaan leenahay cashuurta hal bixiyo cashuurta 5% waa laga been sheegay marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhamaatay aan la hubin ayaa la idinkaga qaadi jiray waa la idinku handadi jiray waa la idinku muxuu ahay tacdiibi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamsay system u samaysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta inay ku qaada ay rabtaa cashuurtaas waa cashuurka askariga amniga sugaya bashaarkiisa laga bixiyo waa cashuurta 10,000 oo macallin dowladdu ay ballan qaaday oo 6,000 oo kamid ah inta shaqaalaysiisay iskuulaadkii dowladda dib loogu furay ee hooyada aan $10 bisha aakhirkeeda aan dhiibi karin cunugeeda in iskool looga dhiga la rabo waa cashuurta macallinka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee facultieskeeda kala duwan wax ka dhiga dhakhtarka soo saar ee injineerka soo saaro maxaan ku yiraahdaa kan cilmi nooc kasta leh maanta inta soo faculty ka kooban soo saaro macallinkaasi cashuurta uu qaato waa lacag mishaarka uu qaato waa gabadha galaaskaas nadiifisa mishaarka ay qaadato waa cashuurtu adduunyada meel kastoo la jooga cashuur in la baxsado iyo cashuur in la khiyaano waa dhacda laakiin system isa dawladdu u samaysata systemkii ugu horeeyay qof aamina ma jira system aamina jira la yiraahdo system aamina dawladdu maanta u keentay laakiin cashuur cusub maanta la soo rogay ma waa qodobka labaad nidaamka emergency-ga la yiraahdo ayaa cashuurtan lagu qaadaa nidaamka emergency-ga la yiraahdo qof license haysto oo ganacsada bas ayaa iska leh dadweynaha caadiga ma laha beena la idin sheegay dadweynow EVC da lacag lagu soo rogay markaad $100 hooyada u turtaa muxuu ahay laga goosanaya xagga laga goos waa been ganacsi waaye lacagta cashuurta ay saaran tahay value added tax la yiraahdo VAT lagu soo gaabiyaa waa la yaqaana suuqa dhaqaalaha Afrika ee aan ku beernay dalka ugu yar 5% u qaadaa cashuurtaas annaga 5% joognaa wali gobolka geeska Afrika sidoo kale dalka ugu yar meesha ugu yar waa 15 meel ka yar 15 ma jirto dal petrol laho dhaqaale laho aan inta badan ba cashuur u baahnayn yaa laga yaabaa inuu intaas ka yar qaado laakiin dalalka kale oo dhani intaas ay qaadaan waxaan rabnaa marka dalka Soomaaliya inuu sheego cashuurta dawladda waa la habeeyay waa la daabiyay horay u socotay mid cusub maanta bilaabanaysa ma aha waa la fududeeyay waa la saxay tuugadii iyo gacmihii dhexe oo waxadayay oo wax waxeenay oo adinka idin handadayay oo in la walaal ganacsigaaga intaasaan ku qiimeynaya hadii kala keen maanta waxa systemka ku jirta waxaad gaday qofna kuma dhihi karo muxuu ahaa milyan gaday adoo maxaan ku raad 10,000 gaday si oo lacag hadhow muga lacagtu badataan nusna qaado wixii aan meesha ka saaray system aaminaan u keenay systemkanaas hala dhaqan geliyo yaan laga hor imaanin oo aan la dheen waxa soo haray culeysyada ay ganacsatada ka hadleen ama dekada ha ahaato ama gaadiidka ha ahaato ama checkpointyaal lacag lagu qaadaa ha ahaato ama wax kale oo cabasho ay sheegeen wasiirkii maaliyadda ay la fariisteen wasiirkii cabashadii inaad u gudbiseen cabashada aad ka cabateen oo dhan wasaaradda maaliyadda kaligeed ma khusayso hay-ada amni kuwa wasaarada kale meelo badan ay khusaysaa wasiirku inuu inta qaado hay-adii oo dhan uu la soo fariisto
oo mid walba tan khalad waayo joojiye tan khalad waayo joojiye tan wadaday martaa wada sax maaha ha laga leexiyo wadada saxda inuu yiraa ha ayaa laga rabaa uuna soo gaarsiiyay wuxuuna tusi sida uga shaqaynaya iyo waxa khaladka in la joojiye ay tahay iyo waxa saxda in la adkeeyo la meel mariyo ay tahay waa lagu jiraa ganacsatadii akhyaarta ahayd ee wasiirka inta la fadhiisatay ballantaa la soo gashay qaarkood aad iyo aadaan uga xunnahay maanta inay abaabulayaan shoobare iyo balaayo iyo wax ay ka shaqaynayaan beledkan shoobare lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso ganacsatadana sharaf jab ayaa ugu jirta ninka ganacsada ahaa haddaanu certificate-ka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri certificate cashuur bixina ma helayo certificate cashuur bixin haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqaynayo war nidaamka dowladnimada sidaas isugu xiran yahay waa la nidaamiyey been iyo beenaale iyo mid dhexda ku jira oo wax kala dalaala laga saaray meeshii ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sida aan dhalinyaradii bajaajtaba ugu sheegay tabashadiina dowladdu waa tixgelinay waxaan idin qabanina waa la idinka leexina wixii nidaam in la nidaamiyo u baahan waa la nidaamina lacag adika idinka soo baxdo oo aan jeebka dowladdu ku soo dhaceyn duruuf kale oo saas labadaas meelood inaanay kalifaysaan aanay jirin waa la waxayna wixii dowladdu ay qaban kartaa adiga wixii adiku aad la qabataan oo u saxdaan oo u toosisaan looma baahanayaba inay meel kale dhacdo laakiin waxaan rabaa inaan u sheego codkiina waa la maqlay tabashidiina waa la maqlay waana la xalinayaa fursad dowladda ha loo siiyo iyo hay'adaha dowladdu inay xaliyaan culeysyadaas la sheegay oo aad wasiirka maaliyadda la wadaagteen waxaan rabaa intaas ka bacdi marka carqaladaha iyo shoobarada iyo buuqa aan nidaamka dowladnimada iyo sharciga meelna aan ka waafaqsanayn kama dhalato kamana soo baxdo wax fiican kama soo baxaan waxaan rabaa taas inay dadkanagu ka waantoobaan hay-adaha dowladda ee khaladaadka galayna waana laga joojinaa waana lagula xisaabtama haddii alla yiraa taas waxaan rabaa ayadana meeshaas inaan uga baxo ganacsatadeena saas ayadana inay u ogaadaan aanay ku degaan dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa warbixino iyo ka dhaadhicin intii sax ahayd oo dhanna dowladda way samaysay dukumenti ah ganacsi kastaa loo geeyey meel kastana waa la geeyey warbixinna waa la siiyey xogogaal dara dadka ma haydo aniga oo odagii arada ana maanta codkaygaan ku kabay cashuurta ha la bixiyo si aan wanaag dowladnimo aan u gaarnoon uga maaranno amnigeeni aan rabnaa inaan la wareegno ubadkeeni aan rabnaa inaan waxbarasho siino ciidankeeni aan rabnaa inaan maxaan ku dib u dhisnoon xoojinoon taagno cadawiyada aan leenahay oo khawaarijta ugu weynta ugu horeysaan rabnaa inaan ka nimaado oo meel saarno intaasoo dhan waxa kaliya ay ku suurtageli karta waxa waaye inaan cashuurta bixino nidaamka dowladnimada aan u hogaansano intaas markaan uga baxo waxaan rabaa inaan usoo laabto baryahan dadka Soomaaliyeed dhagahooda waxaa kusoo dhacayay arinta Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhex taagan arintaas arrin nasiib darro ah waaye kuma faraxsanin inay dhacdana sax ma ahayn nasiib darro dowladda Ethiopia garaawshiyo waa laga waayay dadka Soomaaliyeed waa og yihiin caalamkuna waa og yahay 1960kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1990kii Ethiopia annaga dhulku sheeganaynay iyo dad Soomaaliyeed naga maqanaan lahayn dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Ethiopia dadkaasaan xuquuqdooda iyo danahooda daba taagnayn muddadaas maanta waa nasiib darro Ethiopia inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay u soo noqotay tiracadaan ka goosanaya maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arab waa intaas jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii dhalatay ayay Ethiopia maanta daba joogtaa ilaa cadaan ka goosanaya horeyna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso Soomaaliyoon dowlad lahayn Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato badan xoog ku gaarto
maanta baddaan xoog ku gaaraa waa dariim waa riyo aan rumoobeen waana lagu soo tijaabiyey baddeenna horaana lagu soo tijaabiyey nalooga mana guulaysan tanna nalooga guulaysan maayo soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaalla qaaradda afrika dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay nalama khasbi karo dhulkeenna nalagama khasban karo waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan annaga raalli ka ahayn oo sida aan annaga u rabno aanan loo samaynayn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn Ethiopia shalay qaanuunka international lawga ee caalamka jiro ayay dhinac martay maanta markii hal wada hadal la yarina wali way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoonno Soomaaliya waxa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday shalay Ethiopia way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana wali ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaay wali ma aqoonsana waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas inay diiday ilaa hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno wax kale oo ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu noo sheegi karaa dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ah dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay walax annaga aan siyaasad ka dhex raadinayno siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga naloo doortay mas'uulna ka ah dowladeeda dhowr maraan sheegay shalayna kamaanan ogolaanin maantana kuwa kale oo yimid ka ogolaamayna kuwa biri ma doonaan kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan siyaasad nagama aha daris naceeb nagama aha xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeena inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambayso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dib kale iyo dood kale iyo dacwo kale qabno mala Soomaaliya ogaada colaad ma qabno diris xumeyn ma qabno dib kale ma qabno waxaasi si loo waxeeyo inta soo jar ayaa dawladda Ethiopia ay meelo badan naga waliba naga xanteynaysa inaan xanaaqno oo hindisno oo qaylino oo caaytano oo maxay ayadoo raadinayso maanan sameyn hal hadafaan leenahay halka hadafaan leenahay waxa waaye gobonnimada madax banaanida midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin taasaan ku taaganahay wada hadaladii waxaan rabaa inaan amaano walaalaheen Turkiga way ka shaqeeyeen way dadaaleen annaga xaggeena kama niyad jabin waxa soo haray Soomaaliya dawladaha hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaanta dawladda Ethiopia intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna cidii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedan ka soo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dawladda Ethiopia marka waxaan leenahay darisaan nahay ismaanaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaan nahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leeyihiin annaguna aan leenahay xaq dhowridaan isku leenahay aan is xaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oo laga dhiijinin aan leenahay intaas wixii ka sokeeyo wax aan kaloon gaar ah oo aan ka rabno ama aan ka qabnaahi ma jirto taasna waxaan rabaa inaan intaas uga baxo waxaan rabaa inaan u soo noqdo oo wadalkii ku soo gunaado siyaasadda dalka iyo xaaladda dalka dagaalkii 2 sano ka hor aan soo bilownay ee khawaarijta walaalayaal wali waa socdaa haddii la idinku sheekay dagaalkii waa dhintay waa dhamaadana waa been dagaalka maanta intii hore kasii xoog badan yahay dhulka lagu dagaalamayay dabeecadihiisa waa isbedeleen nooca dagaalka lagu jirana waa isbedelay laakiin dagaalka ma istaagin waa socdaa
intii hore waa ka balaareen 2 sano Jubbaland dagaal kama dhacaynin waad garanaysaan uu ka socdaa koonfur galbeed kama dhacaynin waad ogtiin waad maqashaan uu ka socdaa inshii corona gabagabadeedii uu ka socdaa dowladdan ajandaha koobaad oo ay leedahay waa dalka in laga xoreeyo khawaarijta dagaalkaasna wuu socdaa wuuna soconayaa ilaa nimankaasi aan mushkiladooda meel saarayno ma istaagin ma daciifin maantaan intii hore ka xoog badannahay ka qalab badannahay ka ciidan badannahay maxaan ku rahaa ka khibrad iyo waayo aragnimo badannahay sabab aan u walwalna inaan guul daraysanayna ma jirto waa guulaysanaynaa dadka Soomaaliyeed ayaan iskala guushaas ayaga ka rabbi Allah iskala guusha laakiin dadka Soomaaliyeed u dhinto dhiig u bixiyay ayaa iskale ninka guul darada tilmaamayna wuxuu macno tirayaa wiilkii Soomaaliyeed ee dhiigiisa bixiyay ee ilmihiisu u agoontoobeen oo waalidkiis u wiil beeray ayay xaqiraad iyo ceeb ku tahay ninka dhahaya ciidanka waa kala tagay ma jiro dagaal ma jiro kan ma jiro qaarkood dhul aanay weligood tagin shala tageen markaas weli waxay sii tilmaamayaan inaan waxba la qabanayn waxbana la qaban waa nasiib darro taasna waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed arrimaha dib u xoreynta meeshaas ay marayaan arrimaha dib u xoreynta waxa barbar yaalay arrintii xasilinta degmooyinkii nidaamkoodii wuu socdaa iskuulaadkii dib loo furay baraha caafimaadka dib loo furay dowladdu maanta 36 degmo ayay dhammaan waxay ka furtay iskuulaadka inay furto bas ma ahane waxay dowladdu ka shaqeysay iskuulaadkaas inay koronto yeeshaan sidoo kale bara caafimaadka degmooyinkaas oo dhan laga furay inay xayaan kaliya maana inay koronto yeeshaan oo cawo iyo maalin hooyada caawa 8 saac fooshu soo qabatay inay tagi karto oo koronto ay ka daaran tahay ay ku umuli karto dowladdu intaas ay ka shaqeey waa wada mashaariicdaas socota horumarka dalka dhan uu ka socdaa xamar kaliya ma aha walaalayaal eega wadooyinka ka dhismaya Baydhaba kuwa Baraawo ka dhismaya kuwa Kismaayo ka dhismaya garoonada iyo wadooyinka Dhuusamareeb iyo maxaan ku iraahday qaybo kala duwan oo galmudug ka dhismaya kuwa maxaan ku iraahday sidoo kale ka socdo hadda sii socdo Hirshabeelle ka socda dhammaan eega dalku jiha saxan oo u socda wada saxan oo haya waxa soo hartay arrimaha siyaasadda maalintii aan doorashada u taagnayn aniga iyo nimankii kale saaxiibaday ahay oo hogaamiyaasha ah oo doorashada dalbanayay halka wax on ka wada sinayn oo manifestadeena qodobka koobaad ka wada ahay wuxuu ahay dastuurkan dib u eegisaan ku sameeynayna waa bedelayna waa hagaajinayna waa dhameystirayna ballanqaadkii noocaas ahay ayaan ku taaganahay dowladeeduna kaasi ka shaqeysaa dastuurka sida loo dhameystirayo sida looga shaqeynayo hay-adeen shaqo qof kasta ay leedahay ma aha qof kasta ee dalkaani dowladay dooratay daday u dooratay wakiilay dooratay daday u dooratay codkooda ku hadla hay-aday dooratay dastuurka gumeel gaarka aan ka shaqeynaynaa qorayo sida dastuurka loo saxayo loo meel marinayo wada tashi maxaa balaarin kulli waa sax waa jirtaa dadka intii danaynaysay oo ayagu inay wada tashigaas ka qayb galaan rabtayna inta suurtagal ah waa la gaarsiiyey ama toos ha loo gaarsiiyo ama si oo danabaysan ha loo gaarsiiyo oo maxaan ku rahaa online oo digital ha lagu gaarsiiyo qaybaa ansaxday qaybta kale waa ansaxay uu dhaqan galaya uu soconaya ilaahay idinkiis baarlamaankuna waa ku ammaanaya shaqada uu dastuurka ka qabtay in shaqada uu guud ahaan sharciga dalkani shuruucdii baarlamaanku qabtay ayaa sabab u ahayday in la soo maro waxaas oo dhan waa lagu guuleystay haddana shaqo fiican ay hayaan waa bogaadinayna shuruucdii kale muxuu ahaay qodob kale soo har waxa ahayd immediate dalka doorasho inay ka dhacdo walaalayaal dowladaan nahay una qabatayna nalaga qaaday deyna nalaga cafiyay si dowlad jirtaana loola macaamiloha inaan sidii dowlad jirta u dhaqmi weynahay sax ma waryaa raalli ka doorashadii dadbaneed yaa waayo qofka ku qanacsan oo inay cadaalad ahayd oo sax ahayd oo aan la isku dulmin oo aan la isku joor falin oo khaladaad aanay ka dhicin mustawa kasta qofka ku qanacsan waayo ma jiro ma arag kuleyba aniga qofka ku qanacsan oo doorashadii aan rabaa dhaayano laakiin nin siyaasi ah oo dantiisa ka dhex arkay doorashadii dadbaneed inay socoto oo teendadii maxaan ku afisyono lagu tiilay ee meeshaasi dana ka gashay
dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal daw ma aha in kaas la dhageysto oo la dhageysan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad dhisateen aad samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hay'adaha dawladda ee idinku aad samaysateen hadday tahay dawlad dhexe iyo hadday tahay dawlad xubinka dawladaha dawlad goboleedyada xubinta ka dawladaha federaalka hadday tahay institutionska jira aan ku ganacsanaano dalkani doorasho dadban waa ka soo guuray u noqon maayo ilaahay idinkiis waa qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa councilka degmada heblaayo la yiraahdo laga keeno waa loo coday waa la doorana dadka doorana inta lagu dhacay iyo hebelaa xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iyo waxa soo dhan oo maxaan ku raas sifaadka la bixinayaa hadafka waa wax muhiimka ah meeshaan u socono inaan gaarno yaa muhiim ah safar dheer haddaad galaysid inaad qodax ku istaagtay iyo inaad ku hantaa turyootid iyo inaad bahal meel kaaga soo baxay iyo kulli waa suurtagal laakiin haddaad hantaa turyootad gadaal u noqoto safarkii meeshaad u socoto gaari maysid safaraan u soconnaa safarkaan u soconnaa waa qof iyo cod wax kasta oo jirana waa u maraynaa si aan u gaarno qof iyo cod sida nidaamku qabo dastuurka hadda noo degan qabo aan hadda dib u eegayno qodobada waqtigan la jaanqa dastuurkeena 12 sano ka hor la sameeyay 12 sano ka hor xaaladdu dalku joogay maanta ma joogo kalsoonida dadka Soomaaliyeed dawladnimada ay ku qabeen maanta ma joogto meeshii waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku qanacsanaadaan doorashadaas qof powerka awoodda ilaaha iskala dadka loo celinaa dadku inay doortaan waaye war Soomaaliyeed dabarka 34 sano ummadeena ku xirnay inaan gooynaan rabnaa kuwa dabarka inuu ku sii xirnaado rabo dhagihiina ha u furina waa dardaaran odayeed dardaarankaas waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo wax yani aan sabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarayna nidaamka sharciga la tashiga isqancinta isdhageysiga annagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyn dalkan intaan dibadaha ayagoo jiro la fariisanay dhageysanay hadday aniga madaxtooyadii tahay xukuumadda hadday tahay guddoonka iyo muxuu ahay golihii baarlamaanka hadday tahay intaan la fadhiisanay maxay idin la tahay aan dhahan kadib aan qof iyo koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa iyo safar dibadda annagoo joognaba aan soo wada hadal isla aragnay nimana meel ay u caddahay doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in la isku haayo iyo yaayna idinkuma marshayn xorriyadda la ka qaadi karo qof Soomaali ah xorriyad laga qaadi karo ma jirto qof Soomaali ah oo lagu khasbi karo waxaan uu rabin ma jirto qof Soomaali ah xukun aan uu rabin la dul saari karaayna ma jirto yaan la idin cabsi gelinin yaan la idin baqdin gelinin dalku wanaagaasna wuu soo maray haddana meesha u sii socdaahay wanaag badan ayaa ka jira waana gaarsiinaynaa ilaahay idinkiis mar kale dalka Soomaaliyeed meel kasta aan leeyahay guuleysta waagu waa dhow yahay inuu bariyo haddii alla yira maalmihii wacnaana way soo socdaan aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh